بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxaan joognaa jaacada Burco. waxa maanta halkan ay ahayd in lagu qabto munaasabad weyn oo ahayd tababar lagu tayeynayay waxbarashada tacliinta sare oo lagu marti qaaday 35 jaamacadood oo Soomaaliland u badan, hase yeeshee ay ku jiraan dhowr jaamacadood oo dalka Soomaaliya. jaamacadahaas kuma jirin wax siyaasada iyo wax xidhiidh kale la dhaxeeya midna kuma jirin. waxa laga hadlayo kaliya sidii tayeynta waxbarashada kor loogu qaadi lahaa, waxaanay qabatay oo shirkan tababarkan uu ka socday jaamacadaha ka mid ah ururka midowga jaamacadaha carabta oo ay jaamacadaha Soomaaliland ay ka mid yihiin, jaamacadda Burco ay ka mid tahay. jaamacadda Burco marka waxay marti gelisay shirka qarada weyn leh ee miisaanka leh ee tayeynta iyo kor u qaadista tacliinta sare ay ahayd. wasaaradda waxbarashada ayaa ogolaanshiyaha iyo martiqaadka casuumadaha jaamacadaha intaba bixisay. waxaa shirka hormuudka ahaa oo joogay horkacayay agaasimaha sare ee tacliinta iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada. hase yeeshee saaka markii aanu ku talagalnay in aanu bilowno tababarka ayaa carqalado amni ay nagu yimaadeen, waxaana lagu amray jaamacadda Burco in laga saaro dadka koonfur ka yimi ee tababarka qayb ka ahaa. ugu horreyn waanu ka xunahay dadka markii hore martiqaadka iyo sifada sharciga dalka ku soo galay, annagana martida noo ahaa in lagu carqaladeeyo. waanu ka xunahay, raalli kama nihiin haddaanu jaamacadda Burco nahay. anigoo ku hadlaya afka guddoomiyaha, anigoo ku hadlaya afka ardayda, anigoo ku hadlaya afka madaxda jaamacadda iyo dhiimankeedaba. waxaan raaligelin ka bixinaynaa dadka martida ah runtii annaga noo casuumka ahaa ka mid ahaa jaamacadaha tababarka qaadanayay in loo diido inay ka qaataan tababarka. taas baan markaa runtii cudurdaarkaas iyo raaligelintaas runtii kolley amarkani wuxuu ka soo baxay uun xukuumadda ayuu ka soo baxay. cidda noo timi waxay ahayd taliska qaybta booliiska iyo military booliiska unbay ahaayeen. taasaana keentay in la joojiyo oo la hakiyo maanta uu socon waayo. weli adigu madaxdii jaamacadaha Somaliland shir bay u fadhiyaan. waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida uu sawirka uu yeelan doono shirku qaybtiisa wejigiisa